هدف كاسدتك مسلم كوقفك مركو مسلم نقضه ويول أما قول الراضعين أيه لكن نرشو أهداف يريرو كسوكا يسيل هذا وحال الربا أهداف يريرو السوكا إن أخد ميسو هدف كوين يعني وحكستو هدف كوين كوي عنيا وإنو النقضة وحان معنا بدنك تادك الصمينين مثلا إن الحوك ستو وشغي ستيد وهانتي يالتيد ومباح ووح بنان نولشنا ولا قربه لكن هدي هدفك كوي دارين ايان كورر إلهي كو قرآنك كو أماني وحولي محي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كوحبا إلهي أماني كوحدا الأماني وحلقوا المامي رقنمو رجال ويان باليدي والرجال محي كسفوبة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله باع مشتركة إيا لعقت كسب الشديد كما ويعسه ما إلا وسيسه هدف كي وينه إنو صلاة أوغو إنو زكاة الله يماده إنو إلهي عابده إنو حصه إن آخره هرتي سايتا الله يخافون ربهم إني ربي قد كعب صريان مالن قلوبتا يقدوميسو إذن هدف كويني وحان سوكو أردامي ضباب كمردان عريان ما هكا قارن كرتا إشكالات ضدتك هاي ستاقو بدني وحوية إلهي وحوين ليه هذا الصلاة دا ما يسان محل يليني فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صلاة دا مركا دا ما يستان للكو كفافو إلهي رزاق دي سرات سدا ليلي واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون لكن الكفاف هي التجارة دي وحنا هدي هدف كوين قلضيان إيجا لغو هرتقية ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وحبدا مركا ما أنت أهداف تواوين تيدتكو إلا بان وحي يريرو سكينكو مشغولا حلقيا بان انت الساعدودات كو بحسي سكول كيات ساقدين وكورن يوم القيامة هدات ساقده مالنت أنا ساقد نمك وين يشرين هالغيابة إنه لا يهياد عيبوبين وكورن قيامة مركز غير نبي آدم ودن الله سكينه هداد عيبوده يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية غير نبي آدم إلا كودن بيا قوبي تاجيهن هداد عيبوده وهالغيابة إن أتسلى إنه لشوا كوا أدك تفضوده وكورن maalinta konton kun oo sanadooda noloshaynu joogno dhammo waa imisa 60 sano 70 sano 80 sano ka waran maalin konton kun oo sanadooda haddaad cadaabanto intaan janniya naarba la isla gaadhin kaana 50000 sana maalina qiyaamuhu waa maalin konton kun oo sanadooda konton kun oo sanadood baa taagnaanaysa konton kun oo sanadood baa dadkan la xisaabaya konton kun oo sanadood baa cadceedu halkan taagan tahay konton kun oo sannadood baad waxaad harsanaysaa waxaad xoogsatay ee hadafkaasi aad u xoogsatay konton kun oo sannadood baad dhididaysaa oo dhididkaagu wuxuu gaadhayaa halka waa dunuubtaadu joogtay konton kun oo sannadood baa ragga qaar hadhsanayaan oo carshu raxmaanka hadhsanayaan ay ka mid ahaayeen dhallinyaradii ku kobocday maxay ilaahay cibaadadiis madaxdii cadaaladda samaysay kuwii habeenkii istaagay ee ishooda ay ooyeysay kuwii gacantooda midig waxay bixinaysa gacantooda bidixaanay ogeyn kuwii shahwaatu nafsiga ka soomay ee naaga quruxda badan leh inta u yeedheen ku yidhaahdeen ilaahay baan ka cabsanayaa ama inantii inanka quruxda badan leh u yeedhaa tidhi waar ilaahay baan ka baqayaa ayay dhaaf kuwaasi waxa la yidhi iyagu carshu raxmaan bay hadhsanayaan cadaabkanaad ku jirta iyo waxa kana arki maayaan ka waran haddaad sileeday nolosha waxaad u baahantahay way kugu adkaatay biyo lacabo iyo sharaab iyo waxoogaa dabdabacsani inaad u samayso ka waran konton kun oo sannadood haddii haraadka u kaa siiyo iyo ninka xawdka nebi maxamed ka cabayaan haraadayninba yacni hadafka weyne hadduu lumo noloshan soka qiimo ma leh shayaatiinu linsi waljinina waxay isugu tageen inay hadafkaa weyn qariyaan وأي كوب مشغولين أهداف يريرو سكة
waxbarasho iyo capacity building iyo halkan kabood iyo xoogsi iyo shaqaysi iyo wax yar yar oo soke oo marar badan aan hadafkaba uu qiimaynaynin dhalinyaradana iyada waxa uu sii dheer qaar aan tannaba wax ka tarin baaba lagu sii mashquuliyey hebel baa laadiya heblaaya kolayga ku riday kubad hadduu ku rido maxaa kaa galay maxaa ka soo baxaya nin baa kubad 2 birood dhex mariyey maxay nolosha ku soo kordhisay gool baa la dhalay maxay nolosha ku soo kordhinaysaa aakhirana wax kama tarto adduunkana wax kama tarto idan ahdaaftii rasmiga ahayd dowladan waxa la idinku qabanayaa baan rajaynayaa in ahdaafta la saxo inaynu dib u xisaabtanno oo dib nolosha u hagaajinno inaynu buusalada hagaajisanno garanno barul amaan xagee lagu gaadhaa doon baynu saaranay noloshu waa doon badweyn ku dhex jirta hadday buusaladaadu sax tahay markabka badweynka soconaya haddii buusaladu kambasku hadduu u saxan yahay mahma ay waxaanay dhacaan wuu gaadhi meel barriyo nabada uu dego wuu gaadhi haddiise kambasku kaa lumo mawjaduhunbaa kolba dhanku u kaxayn badweyntuunbaad ku wareegi doontaa adoo aan weligaana dhul arkaynin waxaa la mid ah qofka noloshan garan waaya wuxuu u jooga ka qabanayo haddaad cab oo cayaar oo boodbood oo wax dhal oo xoogso oo daaradhis oo kan samee dan hargeysaa joogtaan bal suuqa hargeysa isdhex taaga raggii dhisay meeye waa daartii xaaji hebel iyo watii ilmo hebel uma maqlaysaan meeye xaajiyadii ka tageen aarahan hargeysada aan maanta dhex joogtaan raggii lahaa cidi kaba noola xaggay joogaan waa kuwaynu meelahan ku marro xataa magac male hadda xabaalaha ka bannaayana asxaabulqubuurkii xaajiyanimadii iyo magacnimadii iyo maamuuskii iyo hebel wixii lumiye waa asxaabilqubuur waa dadkaa godadkaa ku jira ciidaynu ag marayno ma waxaad diyaar u tahay inaad danda intaad dhisto ku biirtid kuwa magaclaawe halkaa ku jira aan la kala garanaynin xufradan ay ku jiraan dabcan qaar bay janno u tahay qaarna naar bay u tahay laakiin inaga agteenna waa asxaabulqubuurun waxay isweydiinta leh markaa war maxaynu u noollahay dhallinyaroy xaggaa ku socotaa noloshaadu xagga ku socotaa jaamacad baan ka baxay shahaadad baan qaatay shaqo fiican baan helay war waa tegaysaa waxaasoo dhammi waa maalmo waxaasoo dhammi kam labistum cadada siniin baa lagu weydiin doonaa labitnaa yowman aw bacda yowm fas'al ilcaadiin baa ku xigta maalin ama maalin badhkeed noloshii oo dhammi waxay kula noqon maalin ama maalin badhkeed markaad kaleba garan weydaad waxaad leedahay fas'al ilcaadiin kuwii tirin jiray bal ha la weydiiyo adigu inay maalin tahay iyo inay maalin badhkeed taad kala saari kari laaday ee bal cid labadaa kuu kala rajaxda ha la weydiiya baa taagan tahay oo nolosha ma maalin badhkeed baad dooratay marka ayuha alikhwa hadafka aynu raadacaynayno adiga lagaaga baahan yahay hadafkaa wixii lagu gaadhi lahaa cilmiya raganimo ah xoogsiya dadaala adigaa lagaa rabaa inaad la timaado adiga jid baa lagugu talagalay guul iyo guuldarro iyo waxani waa iska meel soke adiga waxaa lagaa rabaa inay naftu kaa baxdo adoo rabbigaa caabudaya adigoo ariiqa saxa ah haya waxaa lagaaga baahan yahay as'ilada kugu soo beeganta nolosha inaad ka jawaabi karto oo aad uga jawaabi karto hadafkii lagu abuuray wixii aad ku gaadhayso kelmadaydu markaa waxay ku kooban tahay nolosha yoolkeedu yuu idinka qaldamin ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu ina wada sugo inuu inagu sugo ariiqa xaqa ah inuu inaga badbaadiyo cadaabkiisa inuu inagu sugo jidka jannada loo maro kuwii islaamnimada ku dhintayna laynaga yeelo subxaanahu wa tacaala